nabaday daawadayaal meel kasta aad joogtaan caawa waxaan idii hayaa wararkii ugu xiisaha badnaa uguna xamaasada badnaa tan iyo intii ololaha doorashooyinka Soomaaliland uu bilaabmay xisbiga rajada shacabka ama xisbiga wadani oo ah xisbiga ugu awoodda badan leh asxaabta qaranka iyo ururada xilligan tartamayaba ayaa maanta lahaa ololihiisii doorashada maalintiisii koowaad gobolada dalka oo dhan ayaa isu bedelay hal mar 24 saacadood la soo dhaafay orange waxaana ay holulayeen guud ahaan gobolada dalku iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo uu 6 gobol ku leeyahay baa calaamaanta xisbiga wadani musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani oo dad badan isticmaalinayaan inuu yahay madaxweynaha la dooran doono 13 November ayaa ololihiisa ku ibafuray gobolka aqoonta waa gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorama halkaasina waxa uu kala hadlay boqolaal kamid ah taageerayaasha gobolka Awdal iyo guud ahaan reer Somaliland fariinta uu musharaxu diray ayaa ahayd midnimo wadajir iyo dhayista nabaradii uu geystay madaxweynaha waqti uu ka dhamaanayo Muuse Biixi Cabdi waxaynu bedelaynaa xukuumad mulmisay kalsoonidii shacbigeeda waxaynu bedelaynaa 7 sano oo dubudhac iyo dhaqaale burbura waxaynu bedelaynaa in xildhibaan xasaanad leh Somaliland ha noolaato Awdal ha noolaato Boorama ha noolaato waxaan u baaqayaa shacbiga aan tiradiisa la qiyaasi karin ee magaalada Boorama ee maanta halkan isu soo baxan weyn ka soo qayb galay maalintii horaanidii waxaan Boorama way codaysay markaa codayntiina mar labaad ku celisay aad baa u mahadsantihiin waa codayseen oo dareenkiina muujiseen inaad hogaaminaysaan isbeddelka ummadda Somaliland doonaysa insha Allah isbeddelkaasina wuu guulaysanaya idinkaana hogaaminaya waxaynu bedelaynaa 7 sannadood oo cabulin iyo cagajuglayna 7 sannadood oo sharci ku tumasho iyo dastuur ku tumasho waxaynu bedelaynaa in xildhibaan xasaanadna la iska xidho sidii Maxamed Abiib waxaynu bedelaynaa in ugaas qaran oo gobolna matala ummad matala halcad loo bareero oo xabad lagu rido loo diido inuu soo galo sidii ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Tuuti waxaynu bedelaynaa 7 sano oo kala qaybin bulsho waxaynu bedelaynaa 7 sano oo dubudhac iyo dhaqaale burbura waxaynu bedelaynaa 7 sano oo sicir barar iyo saxariir waxaynu bedelaynaa 7 sano Somaliland weynay kalsoonidii beesha caalamka waxaynu bedelaynaa xukuumad mulmisay kalsoonidii shacbigeeda oo dareenka Boorama maanta ugu horeeyay insha Allah waxaan ku celinayaa mar labaad ballanqaadyadayda waxaan ugu horeysiinayaa si uu ka hadlayay mayrana hadda mashiinkii oxygen-ta dhakhtarka Boorama inuu sanad fadhiyay oo uu fadhiyay $40,000 oo xukuumadda laga insha Allah xukuumadda wadani markay timaado waxa ugu horeeyay fulin doontaa nolol ay talayna ballanqaadyadii kalena waan ku celinayaa madaarka Boorama in badan buu qabiyaha waa dhisaynaa jaalaya wadada isku galaysa Boorama iyo loo yaado ee lacagteedii diyaarka ahayd ee xukuumadii soo taagtayna waanu ka qaadaynaa xayiraadda oo la dhisay
إن شاء الله وضد المهم كاهي بورمي مكينا ونسد magaalada Hargeysa oo boqolkiiba 45 codadka doorashooyinka la dhiiban doona yaalaan waxa si weyn isugu laba rogay maayirkeeda oo ah maayir dadka reer Hargeysa ay aad uga dambeeyaan isla mar ahaantaana shacbiyad aad u weyn kule magaalada Hargeysa waxaanu fagaaraha kala hadlay shacabka reer Hargeysa isagoo maanta iyo xalayba fariimo muhiim ah doorashooyinka diray arinta 24 saacadood ee u dambeeyay sida weyn loo hadalhayay ayaa ahayd inuu ka dhabeeyay Cabdikariin Axmed Mooge maayirka magaalada Hargeysa ama caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa ballanqaadka uu ka ballanqaaday shacabka reer Hargeysa iyo guud ahaan reer Somaliland waxaanu gabi ahaan baxay daabka dawladda hoose ku xareeyay gaarigii dawladda hoose lahayd ee uu ku shaqeynayay isagoo ka haystay mid kamid ah baabuurtiisa bareefaadka ah maadaama uu hore u sheegay in aanu hal senti oo cashuurta dadweynaha ah aanu ugu ololeynin musharaxa uu watay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta ay u kala xidhneyd caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa fariin taabanaysa mustaqbalka dhalinyarada reer Somaliland iyo wadajirka bulshada reer Somaliland guud ahaan ka diray fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa oo kula hadlayay kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani oo halkaasi soo buux dhaafiyay goor hore oo saaka waxa la idinku yiraahdaa cid baa cadowa cid cadowga ma idin sheega war ninka dhalinyarada shaqo u abuuri waayay baa cadowa ka saboolka nolol sameey waayay baa cadowa ka Soomaaliland horumari waayay baa cadowa ka miday waayay ayaa cadowa war ka dib inoo dhigay baa cadowa cadow ma nihin way wadanow may maqlaysaan may la socotaan reer wadanow may maqlaysaan may la socotaan walaalayaal marka ugu horeysa waxaan idinka mahadnaqayaa inaad milicda iyo cadceedda u taagan tihiin inaad dareenkiina muujisaan oo ah horseedaan in Somaliland isbeddel ka dhaco reer wadanow may la socotaan walaalayaal sidaad wada ogtihiin Somaliland way kala tabatay oo way kala tirsatay oo wax badan oo ay kala tabanayso ayaa jira Somaliland waxay u baahan tahay nin tabashooyinka wax ka qabta nin kasta wax tabanayna geed la fadhiista Cabdiraxmaan Ciro waa musharaxeena waxaana ka go'an oo uu sharaxan yahay inuu Somaliland waxay kala tabanayso dhameeyo mideeyo walaaleeyo ka dhigo dad wada jira oo dal wada waxaan rajaynayaa maadaama uu aragtida xambaarsan yahay inaa ugu hiilisaan oo codkiina ku siisaan soo codka siin maysaan soo xisbigeennana soo saari maysaan waddani ha guulaysto reer Hargeysa may maqlaysaan may la socotaa waxaynu u baahannahay xukuumad ay ka go'an tahay oo barnaamij kale in caasimadda Hargeysa la horumariyo oo miisaaniyadda u gelisa miisaaniyad la yiraahdo miisaaniyadda horumarinta caasimadda jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo subaxnimadii hore magaalada Boorama uga qudbadeeyay kumanaan kamid ah shacabka reer Boorama ayaa markii dambe ololihiisa maanta ku soo khatimay magaalada Gabiley oo ay yaalaan in ka badan 80,000 cod oo xilligan ay ku tartamayaan madaxweyne biixi iyo Cabdiraxmaan Ciro walow dadka siyaasadda oo darasa iyo guud ahaan raayul caamkuba sheegayaan in 80% dadka reer Gabiley ay ka rajo dhigeen soo noqoshada xukuumaddan Muuse Biixi oo qaladaad badan iyo dhaawacyo badan u geysatay qarannimada Somaliland 7 sanadood ay xukumaysay waxyaabaha ololaha maanta uu kaga duwanaa ololayaashii hore waxaa kamid ah in magaalooyinka waaweyn maayiradooda ama golayaashooda deegaanku ay si weyn uga qayb qaadanayeen ololahan isu soo baxa xisbiga wadani maayirka magaalada Burco iyo maayirka magaalada Cerigabo ayaa fagaarayaasha beerta xorriyadda magaalada Cerigabo iyo khayriyadda magaalada Burco iyaguna kala hadlay boqolaal kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee xilligan isbedel doonka ah waxaana laga dareemayay guud ahaan gobolada waaweyn ee dalka in isbedelka dalku yahay mid ka siman bari ilaa galbeed horta ugu horeyn aan dhageysano khudbadii musharaxu maanta ka jeediyay magaalada Boorama iyo magaalada Gabiley maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo ay garba taagan yihiin siyaasiyiinta waaweyn ee xisbiga wadani
ugu horeeyo Cabdilqaadir Jirdo oo kamid ah rukunada waaweyn ee mucaaradku xilligan ku taagan yahay ayaa si wada jir ah ula hadlay shacabka magaalada Hargeysa waxaanay taabteen boogo iyo nabarro shacabka uu geystay xisbiga kulmiye waa damaashaad waa taageero waxa weeye horaa laydin guubaabiyey 100 jeer baanu hadalay dalka waxa وأنا نقول عيني عين من عين وحدوني بكبولي وحوية أنا أقول ما توحد لله هاي ما جبته دور الشدي طاير كمان يجير كمان كنت أنا قبصة أيوه ملو قبض الحلوة يا ما أنت نفيس والما وين كسر نفيس والما وين كسر ما أنت فرتنا يكون حلنتاي فرتنا يكون حلنتاي فرتنا ذلك قبل بدن باطلا ذلك ولا كلا قيبي ولا جهيلي دبل يبدو ولا جهيلي الربيه دبدا ترافرانينتا أي عز الله كذا قاقي صاحب دي سومالي لا ضدن أي دبك الزوج يدي وحاصل واحد يقول دي ترافرمه يتلقى هذا الآن كل عدل بك عقل بديهاي كل عدل بك في عياي وقفكي ولو ما دوح الشيء ما يرمي شيء يا مو قرنيا وطمان تالكاين لكتي سومالي لما انت بدبادو وباهتاي بدبادو اي وباهتاي دور الشدن اي بدبادو كوي منيسا دور الشدن ولا ديدنا بدبادو لا ديدنا ما هذا واحد ويلينا لبدا فروتاغا معناه وحوي تاغيريش حزبيا مeel kastay joogaan codkeenu waa labada cod waa Cabdiraxmaan iyo Maxamed oo cabdi madaxweynaha madaxweynaha talabaadna waxa weeye waa xisbiga musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa saddexda maalmood ee xisbiga wadani uu leeyahay ololaha banaanbaxa doorashooyinka u kala qaybiyay magaalooyinka waaweyn ee dalka isagoo maalintiisii koobaad ku iba furay magaalada Boorama wararka aanu helayna ayaa sheegaya in ololaha labaad ee maalintiisa labaad uu isaguna sidoo kale ku qaadan doono magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco halkaas oo kala hadli doono boqolaal kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer kuna dambeyn doono gobolka Saaxil maalinta ugu dambaysa ololaha xisbiga wadani uu leeyahay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu si toos ah ula hadli doonaa oo ka qodbadayn doonaa fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa halkaas oo shacabka reer Hargeysa 45% tirada guud ee codadka Soomaaliland laga dhiiban doono oo halka codkiisa ku weydiisan doono kuna soo khatimi doono ololihiisa doorashada daawadayaal caawa ilaa berri sidoo kale waxa ay tahay maalintiisa koowaad ee ololaha xisbiga xaakimka kulmiye bal waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka xiga sida xisbiga kulmiye uu sameeyo isu soo bax u dhigma xisbiga wadani oo saaxadda madaxweynaha xilligan ay ku loolamayaan waanigoo Sakariya Jilaaniya tan iyo intaanu ku kulmayno barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh